Assalaamu calaykum guys, kusoo dhawaada casharadeenii online-ka idiin soo gudbin jiray xiliyadan oo kale. Casharkeeni maanta waxaa uga hadlaynaa mowduuc aad u xasaasi badan oo ah malaria test. Waxaan ku guda jirnay serological examination aan ku guda jirnay. Serological examination-ka ka hadlaynaa oo waxaan ka qaadanaynaa bariga malaria test ama malaria rapid test si loo sameeyaa. Inta ugu guda galin kora casharkeena waxaa idinka codsanaynaa haddaad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe saar. Haddaad ka mid tahay ardayda ku taxnaa kanaalka fadlan share garee si ay ugu faa'iidaystaan ardayda kale. Malaria test waxaa loo isticmaalaa labadan shay inuu ardayga aqoonsada la rabaa. Description of the chemical principle behind RTD test for malaria. Waxyaabaha la isticmaalayo malaria oo antibody ahaan loo isticmaalayo. Describe test known clinical applications iyo waxyaabaha ka dhalan karo. Yacni mar alla markaad baranaysid malaria qeybaheeda oo kale inaad baratid. Yacni kaliya haddaad baratid malaria see loo baaraa. Waxaa laga yaabaa inaa waxyaabo fara badan kaa dhiman yahay. Marka malaria waxaa la diseases waa kaas cause waa cudur kaasoo sababi karo. 4 identification specimen sababi karo. 4 identification specimen sababi karo. 4taas waxay kaliya plasmodium loo yaqaanaa plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium falciparum, plasmodium ovale, plasmodium malariae. Waxaana gudbiyo wax loo yaqaano female anopheles mosquito gudbiso. Waxayna ku gudbisaa 48 saacadood kadib qofka jirkiisa kasoo muuqanaya laga daaweyn karaa ama laga baari karaa. Yacni qofka 48 saacadood kadib waa laga baari karaa. Marka mosquitodan waxay ku gudbinay by blood injection gudbinay. Marka specimen collection waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka baartid. Waxyaabaha u baahan tahay inaad ka baartid marka aad baarisid. Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka baartid. Tusaale mar alla markii oo waxa ay sababto waxaa kasoo muuqanaya complications calaamadaha kasoo muuqanayo. Calaamadahaas ka baara sida loo jideysay WHO. Marka anaga waxaa ka baaraynaa markii baaritaanka la rabo whole blood soo qaadana dhiigga. Can be performing when whole blood is both fingers or whole blood oo aad ka qaadid vein bangeries ama farta ka qaadaysa dermal bangeries sameynay ama waxaa ka qaadaysa xididka dhiigga ka qaaday. Labadaas wad methodkii ku fudud isticmaale. Marka isticmaashid kadib waxaa sameynaysaa waxa u gudbaysaa malaria inaad baarisid. Waxyaabaha laga baaro marka chemicalska. The principle marka of the malaria BF marka rapid tests device whole blood. Waxaa la isticmaalaa marka quantity of the waxaa isticmaalay immunoassay isticmaalay oo lagu baari karo BF waxaa lagu baari karaa BV yani plasmodium falciparum iyo plasmodium vivax lagu baaraa. Antibodies kaas test ku daray specimen waxaa isticmaalay blood dan waxaa bilaabanaya inuu isku falgalayo dan wuxuu bilaabaa inuu sameynayo wax loo yaqaan pre-coated in the test step. Mixture-ka isku dartay makhluudkii labada makhluud oo malaria BV ahay BV ahay iyo waxa aad rabtid inaad baartid oo BV ahay iyo waxa aad isticmaashay oo ahay rapid test-ga isticmaashay oo ku dhex jira antibodies-ka wixii falgaraa wuxuu ku siinayaan appearance color soo muuqanaya. Lines color soo muuqanaya waxay ka soo muuqanayaan by test. Riiga meesha ka soo muuqanaysa labadaas riiga fiirine. Labada riiga waxaa dareemay inay yihiin waxyaabihii laga baaraya malaria. Marka rapid test-ga isticmaalayna waa kuwaana rapid test-ga tirado ka batay. Marka rapid test-ga soo qaadanay bacdana soo qabanay waa fure. Waxaa ku soo baxayo malaria kit. Ujeeda malaria kit ku soo baxay boqan oo geeska jiro waxaa lagu dhibciyaa test-ga caadiga. Midka kalena waxaa loo isticmaalaa reagent-ga hadda arkaysa. Baalkaana waa baalkii oo dropperka lagu shubayo waay. Kanna waxa waa finger banger waay. Farta lagu bajiyaa adoo isticmaalaya baalkana ku xiray farta ku bajinay. Kanna waxa waa cotton lancet waay. Baalka gacanta ku nadiifinay. Dan waxaa soo qabsanay baalkaas aad dhexgelinay. Dan afka ka furay cirbad afka markaa ka furtid waxaa bilaabay inaad banger isticmaalaysid. Farti qafka aad rabtid inaad dilaaciso soo qabsanay waa bajinay. Waxaa si diyaarsanay suufka gacmaha should be waxa waay inuu wax kugu jiro gloves. Fartiyaa soo qabatay waa nadiifisay. Markaa nadiifisay kadib dan waxaa bilaabaysaa inaad bangerin ku sameynaysid. Farta waa dilaacinay. Markaad dilaacisid oo bangerin ku samaysid dan waxaa soo qabanay inaad baalka kitki aad soo qabanayso isticmaalaysid. Baalka waa dilaaciyay waxaa ka imaaday dhiiga ka imaaday dan waxaa ku qaatay
dhiiggii baalkan oo drobarka ku qaatay, isla markiina waxaa kortagay kedkii kortagay waa ku dhibcistay. Kedka markaan ku dhibciyo isla markii kedka waa ii jiiday. Mar alla markuu ii jiiday kedkii waxaa isticmaalaa reagentigan. Reagentigan waxaa loogu talagalay waxyaabihii oo centrifugeka loogu maarmi lahay oo ii nadiifinaya. Yani centrifugeka wuxuu sameynaya dhiig inuu ii kala dejiyo. Reagentiga wuxuu sameynaya marka wixii oo balaadka wax ku jiray oo muqallafaadka meeshii gaduudnaa hadda waa isbedeshay, cadaan isku bedeshay. Gaduudkii meesha soo buuxsami lahay oo dhiiggii ahay oo iga nadiifina reagentiga wuxuu isoo saaraa riiga oo dheer. Waa hal riiga dheer ujeedaa. Riigadan dheer haddaa aragtidna negative waaye. Haddaa aragtid laba riig haddaa aragtid, labadan riig haddaa aragtidna waxaa loo yaqaanaa malaria positive. Marka halkan riiga markaa arkaysid malaria ma jiro, qofkan wax cudur oo malaria ma qabo waay. Hadduu cudur malaria qabinna wuxuu noqonaa qofka aan waxba qabin. Hadduu positive noqdana labadan riig kusoo muuqanayso. Hadduu labadan riig kusoo muuqdana qofkan wuxuu qabaa malaria positive waay. weliba strong malaria uu qabaa. Ujeedin riigada oo tiida ku aadan waxa waaye very very shining waay. CET si loo akhrina waa soo baranay. Marka waxaad ogaataa oo haddii oo kalarka labadan test ku soo muuqdo oo midka tiida wuxuu kuu muujinaa inuu malaria jiro, midka kalena oo loo yaqaan siida wuxuu kuu muujinaa inuu yahay control inuu yahay specimen control ku muujinaa. Marka waa kaya malaria qaabkaas loo baaraa. Way kalena waa jira oo la isticmaalayo wayan kala jiro. Haddii oo ku noqdo invalid hadduu ku noqdo kale wax calaamad ma ku soo muuqanayo. Hadduu oo invalid ama valid ku noqdo wuxuu ku soo muujinaa only T ku soo muujinaa. Yani qaladaadka dhici kara lagaga sheekeynaya. Valid invalid dhici karo, qaladaadkaas dhacayo waa inaad aqoonsataa. Marka malaria way kala loo baari karo waxa waa inaad centrifuge gelisid asoo kala jiisid dhiigga. Waxaad ka maarmi markaa centrifuge gelisid reagentiga lagu dhibcinaa inaad ku dhibcisid. Ilaa waa soo reagentiga sababta loo soo dhaxgeli ma fahansano. Reagentiga waxaa loo soo dhaxgeli in laga maarmi karo in loo isticmaalo baalkan oo hadda aad sheegaysid dhiiggaas in centrifuge la geliya laga maarmaa. Si direct waxaa loo isticmaalaa malaria soo qabsanay. Markaad dhiigga soo qabsanay waxaad ku dhibcinaya baalka isla markii shaqadaada qabsanay waxaa ku daray reagentiga. Reagentiga wuxuu ka remove gareynaa wixii dhiig guduud kaga dhigay meesha uu remove gareynaa. Marka saasa loo isticmaalaa, saasa loo baaraa. Wixii su'aal qabo oo malaria ku saabsan waxaa nagu soo qori kartaa commentiga. waana maasantihiin. cashirkan intaas ku soo gabagabeynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.